ninkii ugu aqliga badnaa ee South African oo aan arko oo ama wax laga hadlayay ama kuwa wax hadlaya horta waa kana ee soo dhawaada saaxiibayaal. Ninkan aan idin daari doono magaciisa horta waxaa la yiraahdaa Kadleeqo Nololo Maboya waa nin kamid ah dadkii dhibaatooyinkii ka soo gaartay Alexandria oo ah qooteen dukaamadii la yiri cunno sun ah lagu gadaa. qaabka uu hadlaa ayaa idin soo jiiday doona waana cajiib ninkan asaga. ninkan wuxuu leeyahay madaxweynaha wali si fiican uga hadlayn isna duwin inaafuna leeyahay waxa uu ka hadlayay iyo waxa aan ka cabanaynana isma loo taagay wuxuu kabi ahaanba bari yeelayaa dukaamada ajaanibta waxyaabaha laga soo gaday. baaraya meesha xaqiiqda ay tahay in dawladda iska leexan oo ay baarto ama ay xirto baaraya. marka ninkan warkiisa waa xeer kadib waa idin daari doona waan isla dhageysan doonaa. xaqiiqatan warkiisa waa aad u cad yahay asaga marka waa wada dhageysanaynaa bal dhageysta bal. Say this uncle that is Letsogo Nololo Maboya. Definitely, as I said, we are heartbroken. But I think the president is not doing much well. I think the president was supposed to get to the core of this by maybe not closing the spaza shop. The spaza shop has got nothing to do with this. If they can close the places where they produce this kind of food so that it must stop. So hence I'm saying the spaza shop has got nothing to do with it. You can close the spaza shop, but if you didn't close the big shop, then they will keep on supplying. Yes, the MEC was at home there by my brother's house at Alexander, bringing whatever they've brought. So yeah, I think the support from the MEC and the people from Alexander was there. Thank you. asla dhageysanay wuxuu leeyahay waxyaabihii dhacay dukaamada ajaanibta wax ay ku lug leeyihiin ama have nothing to do with it wax ay macnaha saameyn ay ku leeyihiin ma jirto. dawladda waxaa laga rabaa inay abaarto oo ay xirto factory-yadii soo saaray haddii dukaamadan la xiriir leeyahay dadkii waxaan soo saaray bari haddana soo meelaha kale kuma sabalay kareynayaan. marka dawladda waxaa laga rabaa uu leeyahay inay xirto meelahaas haddii la xiray iyo haddii furnaadaan nimankan ajaanibta meelahaas ay wax ka soo kataan oo u sabalay kareen. anagu ilmahayna waxay ku dhinteen wax factory-yada iyo warshadaha soo saara waxaan ay ku dhinteen muugii ay soo sameeyeen muugii wax oo ajaanibtan wuxuu leeyahay tabarta daran wax ay sameyn karta ma jirto leeyahay. marka dawladda waxaa laga rabaa in macnaha ay si serious u qaadato arrintan. xaqiiqatan waa si caqliyeysan oo xigmadeysan oo cilmiyeysan ay uga hadlay arrintani waana kuma dhiiri karaan South Africaanka kale inay saas u hadlaan oo South Africaanka kale waxaad midda waxaa iskala cadaan iyo balaayo kale cabsi kala ku jirto laakiin ninkan walaalkiis gabar yar u dhalay ayaa kamid ah dadkii ku dhintay Alexandria oo waxyaabaha sumaysan cunay haddana saasay tahay wuxuu leeyahay nimanka oo MEC-ga oo madaxda waa noo yimideen just waxay noo keeni karaan Soomaaliya ay noo keeneen kadibna waa iska baxeen laakiin in dukaamada aan xirnay inay hadda noo sheegaan waa qalad. dukaamada macnaha xitaa waraysi waa si dheer wuxuu leeyahay anaga ku nool waxaan ka gada jirnay weligeena kuma dhiman dadkan wax ma sameeyaan taagay ninka tabcan saa dareema ninkaas gurigiisa dad oo ajaanib ah ganacsi kula ana qaabka ku nooliin waxa arko noloshooda ana arka dad ayaga dhanba wuxuu leeyahay macnaha hal jibs ee kada warbixintu waa si dheereed kadaal ayaan waa soo gali weynay laakiin wuxuu leeyahay dad ayaga dhanba wax raqiis iska gado kala dhiibo sameyn kara waxyaabaha qaar mana laga dhadhacsiinayo leeyahay. marka nin aad cilmi iyo caqli iyo xikmad lahaa ayuu ahaa. marka sida ninkan oo kale ayaa soo jiiday warbixintiisa aad u mahadsantiin waan idin salaamayaa halaasaan idin soo bandhigay.